subax wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garoobo wararkeena subaxnimo inaad ka daawataan janaaladeenna sirta wararka iyo sidoo kale calanka news waa subaxnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 19 bisha Janaayo sanadka 2020 saakeena saaxiibayaal wararkeena qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona waalidiin Soomaaliyeed oo banaanka u soo baxay sheegan in caruurtooda ay la'yiin kuwaas ay u maleynayaan in loo qaado wadanka Eritrea askar ahaan lagu geeyay dowladda Soomaaliya ay ku eedeeyeen in ay u adeegsato dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega maxay ka yiraahdeen waalidiinta caruurtooda ay ka maqan yihiin waa sidee xaaladda caruurtooda cunna ma cunin mana cashayn saaka ma qadaynin maantay dhibaatada ay haysato meel uu iga jiro ma helo nolol iyo geeri kuma haayo waxaan rabaa wiilkaygi dawladda waxaan ka codsaa wiilkaygi anay nolol iyo geeri iigu soo baahiyaan sawirkiisi waa haayaa hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysan maxay si xoog ay ka hayaan dowladda Soomaaliya qudheedo arintan war rasmi ay ka soo saartay maxay ka tiri dowladda Soomaaliya warkan maanta iyo shalayba soo baxay ee ahaa in askar Soomaaliyeed lagu laayo gobolka Tigreega waxaa nasiib darro ah in ciidanka xooga dalka laga dhex raadiyo siyaasad sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka cadaynaynaa wararka ku-tiri-kuteenta ah ee been abuurka ah ee mala awaalka ah ee laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dibadda ay ka dagaal galeen qodobada kale inta ka baxsan waxa qayb ka noqon doona saaxiibayaal General Odowa taliyaha militariga oo xilalka ka qaaday taliyaal sare oo ciidamada ka tirsan James Iswan oo eedan culus u jeediyay madaxweyne Farmaajo warkii ugu dambeeyay khilaafka arrimaha doorashooyinka qayb ay ka yihiin qodobadaasi kuba kale yana qayb ka noqon doona wararkeena subaxnimo qayb ka noqon saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhig gambalelkana taabasay kugu soo dhacaan muuqaalada warbixinada iyo xogaha gaarka ee halkan aan ku baahino mar kale soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilaabay ee baraha bulshada waxaa qabsaday hooyooyin badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo shalay barnaamijyo dhigay eedeena u jeedinaya dowladda Soomaaliya oo ku aaday in caruurtooda loo adeegsaday dagaal ka dhacaya wadankaasi Ethiopia waxa cirka isku sii shareeraya walaaca laga qabo in waalidiinta Soomaaliyeed ay soo bandhigeen in caruurtooda loo adeegsado dagaalka ka dhacay Ethiopia tan iyo markii ay soo shaabaxday warar sheegaya in dhalinyaro Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin dagaalka ka dhacay gobolka Tigreega markaas dowladda Soomaaliya ee halkaas boqolaal askar oo Eritrea lagu tababarayay u daabushay xogo uu helay janaaladeen ayaa baahinay warkan tan iyo shalay wixii ka dambeeyay waxa soo baxay waalidiin Soomaaliyeed oo aad u murugsan xogaha aan daabacnay oo ku aadan in sawirro iyo muuqaallo aan baahinay oo ku saabsan in dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo adeegsanayo dagaalka kooxda TPLF ee dowladda Ethiopia dagaalka ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ku dhow ilaa 370 askari oo Soomaali ah kuwaas oo tababar ahaan lagu qaaday wadanka Eritrea marka ay tababarka u soo ilaadeen la geeyay dalkaasi Ethiopia gaar ahaan gobolka dhaca waqooyiga wadankaas oo dagaaladu ay ka socdeen taliye ku-xigeenkii hore hay'adda Nisa Cabdisalaam Guuleed ayaa xalay goor dambe maruna la hadlay channelkeena waxa uu sheegay in saraakiil Ethiopian ay xaqiijeen geerida 370 askari oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar ahaan lagu geeyay wadanka Eritrea kuwaas oo markii tababarka 4 bil ay dhameysteen kadibna lagu shubay gobolka Tigreega baaritaan xiriir joogto oo channelkeena ila kala duwan aan la sameyn ayaa waxa noo xaqiijiyay in ciidamo Soomaaliyeed gobolka Tigreega ay ku dhinteen kuwaas laga keenay wadanka Eritrea ilaa 4,000 askar oo Soomaali ayaa wadankaasi Eritrea tababar ahaan loogu qaaday kuwaas oo tababar halkaas ku soconay waxana ilaa lagu kalsoonaan karo dhanka militariga ay noo xaqiijeen in ku dhow ilaa 400 askar ay ku dhinteen oo dhalinyaro Soomaaliyeed dagaalada ka dhacaya wadankaasi Ethiopia oo dowladda Soomaaliya 1,000 askar ay u dirtay wadankaasi Ethiopia dadkan oo dhan oo la hadalnay ayaa waxay noo sheegeen in ay xaqiijeen in caruurtu ay rag dhalinyaro ah oo tababarkooda aad u liitay sidoo kale luqadda wadanka Ethiopia ay aad u adag tahay inay yaqaanaan sidoo kale waxa qayb ka ah dhulka lagu dagaalamayo dhul buuraa inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa tababarka markii loo qoray waxa la sheegay loo qaadi doono wadankaasi Qatar taas oo keentay in kumanaan dhalinyaro markiiba isdiiwaan galiyaan
balse markii isdiiwaan geliyeen diyaaradii la saaray ayaa meeshii Qatar ay ka sugayeen waxa laga riday wadankaasi Eritrea halkaas oo tababar loogu bilaabay magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacay isku soo bax barnaamijyo dadku ay dhigayeen kuwaas oo hooyooyinka qaarkood warbaahinta ay kula hadlayeen tan iyo markii xogtan ay soo shaacabaxdo aan baahinay qaarkood waxay sheegeen in caruurtooda ay geeriyoodeen kuwana waxay sheegeen in ay laayihiin ilaa hadda jaani cirib hooyooyinka qaar oo la xanuunsan xanuunka dhiigkarka ama sonkorta ayaa galay xaalad koomba markii ay maqleen xogaha sheegaya in caruurtoodu ay ku laadeen dagaalada Ethiopia ka dhacaya magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka dhacay barnaamijyo culus oo ay dhigayeen dad badan oo ay ka soo horjeedaan dhibaatada caruurtooda waa kuwan qaar ka mid ah hooyooyinka hadlay ee barnaamijka dhigayeen waxaa iga maqan wiilkaygii Axmed Saciid Axmed iga maqan wuxuu uga maqayaa 9 bilood nolol iyo geeri kuma haayo subax oo iga tagay ay ugu dambaysay waxaan maqlay ciyaal badanaa geeriyooday saasaan u imiday maantay xalay saaka ma badar ma cunin cunno ma cunin mana cashayn saaka ma qadaynin maantay dhibaatada ay haysato meel uu iga jiro ma helo nolol iyo geeri kuma haayo waxaan rabaa wiilkaygii dawladda waxaan ka codsadaa wiilkaygii anay nolol iyo geeri iigu soo baahiyaan sawirkiisii waa haayaa hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysaan ahay meeshaan waxa wiilkay ma iman telefoon kama hadlin hooyo Soomaaliyeed aan ahay wiilkayga la raadiyo dina gatay waa la gatay wiilkayga la raadiyo dawladda waxaan ka codsaa wiilkayga hadduu dhintay iyo hadduu nool yahay in la raadiyo wiilkayga la raadiyo dadku wasku muslim aan ahay hooyo Soomaaliyeed aan ahay aabiis cuuriyaa waaye la raadiyo wiilkay ma iman warbaahin ma iman la raadiyo luul Abuukar Cali la yiraahdo war dhiig leeyaan deganahay subaxda waxa ay ugu dambaysay la raadiyo madaxda waxaan ka codsanaynaa inay wiilashayna meel noogu sheegaan haday dhinteenna noo sheegaan meedkooda noo sheegaan haday nool yihiin waa ay nagu sabriyaan ay tusaan nolol iyo geeri lamadaba waa ku sabraynaa ilaahana siiye inta nool waa nafle waa dhimanaysa marka waxaan rabnaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha inay wax nooga qabtaan ay noloshooda iyo geeridooda lamadaba ay tusaan saasaan ka codsanaynaa waxa iga maqan wiilkaygii 8 bilood iyo 20 cawa ayuu iga maqan yahay 9 bilood waliba aysan u dhamaanin alxamdulillah waxa qaaday dawlad Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa farmaajo iyo nimanka ka sareeyo nimanka ka hooseeyo kolba laga ma sareeyo oo madaxda oo Soomaaliyeed oo muslimiina waxaan ka codsanayaa nolol iyo geeri aan maqalnay alxamdulillah dhibaataan maqalnay waxaan ka codsanaynaa madaxda Soomaaliyeed nolol iyo geeri ragga waa loo dhalay inay ninkii dhintay iyo ninkii nool intaba ay nagu qanciyaan assalaamu calaykum waxay maqan anoo farxii maxamuud walaalkay Cali Carfaay nolol iyo geeri kuma 9 bilood oo ay maqan yahay qofka dhimatana waa duuga lahayd qof nool oo duugan aanu ku sabreenaa naga maqan dawladda Soomaaliyeed waxa ka codsanaynaa meedkooda xataa loo nool keen waa qanacsanahan shal uu ka naga wadeen oo ka naga deeyo tababaraan iyo wadanaadeen dawladda Soomaaliyeed waxa ka codsanaynaa in walaalaheena noo keenan hooyana sokor ay qabtaa waa saaca ka fadhid ma hadli karto wadnaa jiitamo ilaahay ka cabsado walaadeen noo keena السلام عليكم waxaan halkaan ka codsanayaa anigoo ah Saaracad Sheekh wiilda iga noqon 8 kilo waxaan ka codsanaa dawladda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay wiilasheen ay noo keenaan ayaga diyaarad naga saareen ilo doorka ka taxsheen waxaan rabnaa dawladda inay noo keenaan gartiin 8 kilo iga noqon nolol iyo geeri kuma haayo annagu waxaan maqalnay Soomaali haddaan nahay khaasatan gobolka Banaadir shacabka ku nool in awlaadina la ka qaaday ee dawladdu naga qaaday mas'uuliyiinta ah in ciidamada Eritrea ay hogaamiyaal u noqdeen baabi'iyeen ciidanka Tigreega dawladda waxaan ka codsanaynaa mas'uuliyiinta inay noo keenaan awlaadeen annaga ugu ma talagelin ciidamada qalabka sida ee Itoobiya iyo Eritrea waxaan ugu talagalnay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya mas'uuliyiinta sarsare
waxaan ka codsanaynaa in ay noo keenaan awlaaddeena meel walba ay joogaan waa dad dhibanayaal ah oo Soomaaliyeedana oo waalidiin oo hooyayeel iyo aabbayaal ummadda dawladda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa iidaa qaadada ilmaheena in ay nolol iyo geeri midoodna siiso waxay Soomaalidu ku mahmaadaan waayeel ma ooyo waa gadooma dad gadoosanaanahay qulubtaynu waa xun tahay waxaan rabnaa madaxweynaha Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inuu carruurtayni nolol iyo geeri midood noo sheego haddii naloo sheegi waayo oo codkayna la maqli waayo waddoodinkaan imaan doonnaa waa muuji doonnaa maqal iyo muuqaalaan ku bixi doonnaa hadda waa maqale annagoo muuqaala aan laamiyaasha istubi doonnaa naftayna iyo maalkayna ayaan huri doonnaa dadkayni owlaadayni aan dhalnay arday iskool dhiganaya xaafada laga kaxaysta laga warqabin waxay meel ay ku sugan yihiin aan la helin warkooda aanan haysan waxaan u sheegaynaa madaxweyne Farmaajo war awlaadayni meel ku sheeg war dadkayna maqal war hooyooyinka maqal war aabbayaashan maqal war niyow madax Soomaalida adaa u sarree adaa dalku adaa haysta ilmahaynu iskama tegin amarkaagay ku tegin eletareeyaa la geey eletareeyay ka tegin Itoobiyay u dagaalameen eletareeya ilmahaynu eletareey ma Itoobiyana ma waa Soomaali dal Soomaalina daafici ma hadday Soomaali daafacayaan waxbay ahaaleed waa u dhasheen waa Soomaali laakiin waxaa calool xumar noo in Itoobiya lagu xureeyo waxaan aqbali karna maaha warkaas waraan qaadan karna maaha laamiyadayaana soo dhooban Farmaajowna maqal awlaadayna meel ku sheeg hooyaanahay waalidaanahay dadkayna naga maqan muhurudna ma hooyana meel galno meel aan raasana ma naqaano heeran uga dacwana ma naqaano marka waxaan ka rabnaa ummadda Nabi Maxamed oo madaxweynaha weeyaan inay awlaadayna meel alla ma ay ku ogyiin iyo hadaynan ogeynba ayaga naga roon inoo raadiyaan nala soo socodsiiyaan noloshooda geeridooraba ku sabarnay nala soo socodsiiyaan ay noo sheegaan saasaan ka rabnaa ilaahay khayr ha siiyo wixii dhintay wixii noolbo aniga waxaan ognahay male hooyaanahay guri ku jirto dadkayna oo naga maqan waa fadhi weyna maanta waa soo baxnay idaacadaan imaadnay waxaan u imaadnana madaxdayna inay waxay ogyihiin waxay ma ogyihiin ba noo raadiyaan noo soo sheegaan nolol iyo geeriba haddaba marka laga soo tago intan dadkan qaylo dhaanta muujiyay dhanka kale dowladda Soomaaliya qodheeda ayaa war rasmi ah ka soo saartay arrintan waxayna been abuur ku tilmaamtay qaylo dhaanta hooyooyinka iyo xogaha ilaha sirdoonka ay baahiyeen dowladda Soomaaliya markii ugu horeysay ka hadashay wararka sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo tababar lagu qado wadanka Eritrea in lagu dilay dagaalo ka dhacay wadankaasi Tigreega wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa sheegay inaysan jirin ciidamo Soomaali ah oo dagaalka waqooyiga Ethiopia ka dhacay loo adeegsaday ma jirto cid Soomaaliyeed ama muwaadin Soomaaliyeed oo dowladda Ethiopia codsatay in dagaalkaas qayb uu ka noqdo waa been abuur waa ku turkuteen waana wax sharafta ciidamadeena meel looga dhacay ayuu yiri wasiir Dube oo muuqaalkan ku qiray in ciidamo ay ka joogaan Eritrea taasoo qoseeyay waxa uu sheegay tababar laakiin waxa uu beesha ka saaray faafinta wararka la xiriira iyo qaylo dhaanta waalidiinta ee ahaa in caruurtooda dagaalka Ethiopia loo adeegsaday hadalka wasiirka ayaa jawaab u ahaa warar soo baxay walaacyo badan oo waalidiintu ay muujinayeen oo ku saabsan in caruurtooda ay ku dhintaan halkaasi xilli tali ku-xigeenkii hore hay'adda NISA Cabdisalaan Guuleedna uu sheegay in ay xoga sheegayeen askar Soomaaliyeed oo tababar lagu qaaday wadanka Eritrea in ay ku dhinteen gudaha wadankaasi wasiirka ayaa saqiray in askar badan ay ka joogaan dowladda Soomaaliya wadankaasi Eritrea halkaas lagu tababarayo laakiin waxa uu meesha ka saaray in aysan qayb ka ahayn dagaalada halkaasi ka dhacay waa kan wasiirka warfaafinta oo asna aan dhageysan doono ama aan daawan doono waxyaabaha ugu waaweyn oo ka hadlaya bismillaahir rahmaanir rahiim caawa oo bisha January ay tahay 18 2021 waxaan rabaa inaan marka hore halkan ka salaan uga diro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan kaasaskooda guutooyinkooda hurimahooda ururadooda saraakiishooda iyo saraakiil xigeenadooda dhammaan goobahooda iyo talisyadooda ay joogaan inaan salaan uga diro uguna hambaliyeeyo difaaca dalkooda ee ay ku foogan yihiin habeen iyo maalin waxaa nasiib darro ah
in ciidanka xoogga dalka laga dhex raadiyo siyaasad. sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka caddaynaynaa wararka ku-tiri-kuteenta ah ee been abuurka ah ee mala awaalka ah ee laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dibadda ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatee jirin. ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ay dowladda Itoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigray. waxaan halkan ku caddaynayaa sidoo kale inaanay jirin ciidan Soomaaliyeed oo inoo jooga dalalka inoo tababaraya oo u diray goob kale oo dagaal. hore ayaa loo fidiyey dacaayado inay ciidan Soomaaliyeed ka dagaalameen Liibiya iyo Azerbaijan. sidii ay u beenoobeen ayay kuwan waqooyiga Itoobiya ee Tigrayna aan ugu caddaynayaa shacabka inay yihiin been iyo malaawaal. waxaan rabaa inaan u mahad celino dowladaha saaxiibada ah ee walaalaha ah ee sida bilaa shuruud ah uga qayb qaata tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxa ay ciidamada tababaranaya oo ah soo celinta karaamadii iyo sharafkii ciidamadu lahaayeen. dadka diidan ee dacaayadaha ku furayaana waxa ay diidan yihiin in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay mar kale muujiso xuduudeeda ciidan iyo awoodda xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u sugaan amniga. waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro siyaasiyiinta iyo suxufiyiinta ka ganacsanaya caloosha iyo qalbiga hooyada Soomaaliyeed ee wiilkeedu u dhaartay difaaca dalka tababarkana ugu maqan yahay. waxaan rabaa inaan idhaahdo hooyooyinkeen hurdada ha ka kicinina. siyaasadduna ma gasho kicinta hooyooyinka iyo propagandada iyo beenta. kuwii hore la sheegay ayaa beenoobay. maalin walba in been la sheegaa waxay hagardaamo ku tahay qalbiga hooyada Soomaaliyeed. ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa inay ku kalsoonaadaan dowladooda, isberber taagaan ciidankooda. rajada soo celinta qarannimada iyo dowladnimaduna ay u baahan tahay ciidan adag oo suga amniga si aynu dowladnimadeenu u taabagasho. waa mahadsantihiin. hagaag daawadayaal marka ka tagno dhalinyarada lagu xasuuqay inta dhimato xalayna Allah u naxariisto inta kale Ilaahay caafimaad ayaan u rajaynaynaa. qiimaha dambe wararkeena soo gana James Iswaan ayaa eedan culus u jeediyay siyaasiyiinta Soomaaliyeed fariin ayuu u diray madaxweynaha Soomaaliya. wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya sheegay inuu sii xoogeysanayo khilaafka doorashada halisna gelin kara horumarka dalka uu gaari karo dhinacyada xasiloonida iyo amniga. wuxuuna sheegay in amniga sidoo kale ay muhiim tahay kadib markii isbuucii la soo dhaafay ay soo baxeen ciidamo Mareykan ah oo ciidamada Mareykan ay ka baxayaan Soomaaliya taas oo dhibaato ku ah Soomaaliya. wakiilka gaarka ee qaramada midoobay Soomaaliya oo qaabilsan James Iswaan ayaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed ku eedeeyay in siyaasado halis ay isticmaalayaan isla markaana dib u dhac weyn u keeni karo dalka. doorashooyinka baarlamaanka ayuu sheegay in ay in bishii la soo dhaafay la qabto laakiin dib ayuu u dhacday. tanna waxay keeni kartaa cabsi kale hor leh. waxaa jirta cabsi la xiriirta in Soomaaliya ay dib u noqoto dagaalo iyo rafaadyo badan oo dalkan soo maray in dib loogu celiyo. laakiin waan ka digaynaa arrintaas ayuu yiri. marka la eego doorashada soo socota fursad ayaa jirta waxaana diiradda saari karnaa muranka iyo caqabadaha taagan iyo kala qaybsanaanta jirta iyo isku soo dhaweynta xaqiiqda. waxaa jira fursad badan oo hogaamiyaashu ay dayacayaan ayuu yiri. haddii farmaajo uu awood u soo bandhigto hogaanka ay waxay keeni kartaa in xiisadu ay sii adkaato. waxay u baahannahay dabac siyaasadeed in la sameeyo yiri. kooxaha isugu jira kuwa maamulada iyo dhinacyada kaleba ayuu ugu baaqay in tanaasul ay sameeyaan. warbixintan ugu dambeysay saaxiibayaal wararkeennii subaxnimo wanaagsan taas.